بسم الله الرحمن الرحيم dhegeystayaal ku soo dhawaada waraysi aan la yeelanay cali xaaji xirsi oo ah madaxa xafiiska Awdal State ee magaalada Muqdisho. cali ku soo dhawo shabakada wararka quljeednaad. بسم الله الرحمن الرحيم كل وهي وانا mahadsantihiin quljeed dad mas'aad baan salaamaya adiga sigada warkayga qabanayna si wanaagsan baan ku salaamaya waana idin ducaynayaa halkan waxaan joognaa qadiyadaas oo Awdal State leedahay oo dadka ka turjumaysa ummadda reer Awdal baan halkan joognaa xafiis baana nooga furan xafiiska waxa lagu magacaabaa xarunta Awdal State ee Muqdisho Soomaaliya waxaana ka shaqeysaa midnimada qaranka Soomaaliyeed waxaana ka horjeedaa SNM iyo mataqaanaa maamulkeeda sida awgeed baan halkan u fadhinaa. waaye cali ilaa waqti muu jiraa goorma la furay xafiiskan balada taariikhdiisa dib loogu yar celiso goorma la furay oo bilaabmay xafiiskani furan yahay muddo sanada ayuu furan yahay shaqooyin badan oo qabtay xafiisyada dawladana uu la xiriiray prime ministerkii hore waqtigii joogay waan la xiriirnay ra'iisul baarlamaanka waan la xiriirnay madaxweynahana waxa noogu maqan codsi weli lamaanaan xiriirin waxaan si jecel lahay inaan la xiriirno hawlaha waxaan observe garaynaa tallaabooyinka siyaasadeed ee ka socda geeska Afrika oo dhan khaasatan kuwa Soomaaliya haddana siira wada hadallada ka socda Somaliland iyo mataqaanaa ka socda Soomaaliya dhexdooda wixii halkaa khalad ee ka soo baxday waa inaan jeegaraynaa dowladda oo ansaxno waxaan ku dhex jirnaa hawl caynkaasa oo danta aan uga leenahayna tahay maslaxadda iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Awdal kaalinta ay ku leeyihiin iyo meesha ay ka fadhiisanayaan ummadda ay ka mid yihiin ee Soomaaliyeed. cali xaaji xirsi xafiiskan waxaad sheegtay ilaa muddo sanada inuu furan yahay hawlo badanna aad qabateen yaa idinka caawiya dhinaca dhaqaalaha ama dhaqdhaqaaqiina hawlahan badan aad qabanaysaan yaa idin taakulayadu waxay kala qabtaa wallahi haddaan run kuu sheego yacni waa isku tashi xafiiskani wax taakula ah oo haba yaraatee mataqaanaa gacana oon ka helaa ma jiro haddii laga tegi waayo runtaa wanaagsan waqtigii mataqaanaa la furay waxa nala joogay guddoomiyihii hore mataqaanaa shaqada iskaga tegay isagoo iska nacay SNMta u wareegay kaasaa nala joogay berigii uu noo yimid baan kula talinay inuu xafiiska furo taladayada uu qaatay xafiiskiibuu furay waxaa loo dhiibay xafiiskan markaa ninkii loola jiray Riiraash oo arrimaha dibadda u qaabilsanaa Riiraashna shaqo uu noqdo Canada uu ku noqday xafiiskii anaa lagu dhiibay intii muddo kirada way soo bixinayeen goortii dambe ilaa muddo 6 bilood iminka shilina ma soo dira waxbana aakhirkiina waaba dee ninkii meesha madaxda ka ahaa xafiiska markii hore furay ee aanu ku taakulaynay waa ka u galay mataqaanaa SNM markaa maanta muddada 6 bilooda cid caawisa iyo cid mataqaanaa gacan siisa oo dhaqaalaha ka kabta midna ma jirto sidaa awgeed xanuun baa la tacaalay iminka waaye cali markii Rashiid Nuur Xirsi au ka tegay saad carab ku dhifatayba waxay maamulkii Awdal State ay madaxweyne u magacaabeen Maxamed Cabdi Dugsiye laakiin waxa jira iyaguna dad kale oo iyaguna meelo kale wax ka dhawaaqay adigu cid aad ku xidhan tahay ee aad meesha wakiilka uga tahay inkastoo dee saad sheegtayba ay tahay masayrka ummadda Awdal iyo Selal ayaad adigu si toos ula shaqeysaa bismillahi raxmaani raxiim waa su-aal aada u wanaagsan anigu aada waxaan uga xumahay markii Rashiid joogay Mr. Nageye uu noo yimid marka waxaan rabnay in la wada hadlo oo mataqaanaa meel isugu yimaado oo doorashada sharciga ee markaa uu Rashiid wato la taageero markay ka dhamaatana si fudud uga tago markuu ka tagana ninkii la doonto la wada taageero laakiin Nageye uu iska diiday wuxuu go'aansaday inuu iskaga dhawaaqo weliba uu caytamay ayaduna waa ceeb dadka waaweyn waa ku ceeb markuu caytamay annagana waxaan warday sidaas si wanaagsan oo maaha oo loo shaqeeyo qarannimana maaha dadkeenana way kala geynaysaa sidaa ka daaya
markay diideen ay idaacadaha ka hadleen ay mataqaana yidhaahdeen ninkaasi uu nagala soo dhuuntay iyagay khusaysay waxaan idhi anagu mataqaana marka waxaa idinkaa dibadda iskala yimid idinkaa dibadda iska soo nacay idinkaa dibadda iska soo diiday marka annaga hanala soo gelina marka anagu rashiid baan mataqaana xafiiska furay xafiis rashiidna wuxuu u dhiibay sidaan kuu sheegay riilaash markuu ka tegayna anigaa tolihii laii dhiibay anigaa mataqaana markaas ku shaqaynaya magaca xarunta Awdal State sidii baanan u hayaa waxaan kala yaacayana khayr kuma jiro waxaan anigu soo dhaweyn lahaa in meel isugu yimaado oo mataqaana si fiican ujeedada ugu weyn waxa weeye ummadda danta in loo kala yaaca ma aha dhulkeeda dhul la haysto weeye oo lagu amar taaglaynayo waana faa'iida laynaga helayaa si khasaaraha aan uga baxno oo dadkeena wax ugu qabano waa in la isku yimaadaa oo la wada hadlo oo meel keliya mataqaana la wada oo xafiis keliya la wada oo ujeedo keliya la wada yeeshaa hadda waxaa muuqata inaanay kaasi jirin marka waxaan wada ninkii ina fure daraad markaan saragnay waxaan war sidan laga daayo uu diiday marka si sharci darro ana maalintii u hadlay waayo waxaynu ognahay dhammaanteen in rashiid 2 sannadood la siiyey cid waliba markhaati bay ka tahay idinka dibadda jooga waa 2 sannadood ha dhamaysto oo mataqaana markaa haddana ha loo fadhiisto ciddii adigaba ha lagu doorto markuu diido maanta muxuu doonayaa ma wuxuu doonayaa inuu fawdihii uu shalayto wax ku qaato taa kuma heli karo sidaa sharciyadda maaha meesha administration meel dadkaale sharciyadna way u baahan tahay nin walba hadduu meel istaago aniga mataqaana waxaan soo sameeyey dama noqonayso okay halkaa markay marayso anigu waxaan la xidhiiray dadkii oo dhan waan waayey cali faarax baan la xidhiiray cali faarax cabdillaahi baan la xidhiiray waa mataqaana wax aad baan u afgaran waayey waxaan la xidhiiray nimankii kale ee mataqaana kanada joogay nimankii marka waxay shireen telefax baanu qaadanay waanu ka wada hadalnay waxaan isla garanay oo ii sheegeen in la doortay maxamed cabdi dugsiye iyo gudoomiye ah ama madaxweyne ah iyo ifraax sheekh xuseen abraar oo madaxweyne ku-xigeena iyo wasiiro kale oo dhowra in la doortay ayay mataqaanaa ii sheegeen telefaxna waanu ka wada hadalnay aniguna markaa kuwaasaan taageeray waayahay waad mahadsan tahay haddaan usoo noqono dhinaca xidhiirka xafiiskan aad mas-uulka ka tahay iyo dawladda soomaaliya ee muqdisho ka dhisan maadaamaayna jirin wax cid dadkii reer Awdal State oo wax dhaqaala idinku caawisa iyaga wax caawimaa ma ka heshaan maadaama aad carab ku dhifatay inaad waxoogaa wada shaqeyna la leedihiin runtii wada shaqeyn waan leenahay xafiisyada waan tagnaa informationka mataqaana waan kala qaadanaa kolba wixii jira ee soo kordha waan ka wargelinaa waayo annagay dantayada tahay inaanu ku xidhno dawladda hase yeeshee been inaan sheegaa ma fiicna waanana qaabilaadaasi laakiin wax faa'iidaha oo dhaqaalo oo ay leedahay ma jirto una malayn maayo inay mataqaanaa imanayso waayo dhaqaalaha dawladda halkan aan xafiis ka furtay la iskuma siiyo taana kama sugayno waxa weeyaan marka aad ismoojiso eed mataqaanaa farsamadaada aad muuqato ee ay dawladu waa dawladu haba iska daciif ahaato dawladdu markay ogaato inaan wax qabanayno oo cid dadku isku wada xiran yahay oo mataqaanaa ajendahaaguna waafaqsan yahay ta dawladda waafaqsan yahay activitygaaguna ay horumar samaynayso markaasaa lagu soo jeegsanaya laakiin marka digitaalkigaagu aanu ku taageerayn ee odaygaagu aanu ku taageerayn ee shacbiyadaadii mataqaana ay kala daadsan tahay ee mataqaana adigii aad keligaa socoto cidla socoto kuwii dibaduhu mataqaana waa ninkaasi u wanaagsan yaho u hadlaayo caynkaanuna ayla yihiin wax laga aqbalaya ma jiro maalin maalmaha kamida waxaan u tagnay ilaahay baa runta jecel waxbaanu ma qariyo runtaan sheegaa hadday xuntiya haddaysan tahayba maalin baan u tagnay baraha ministerka markaan u tagnay waan u waranay yaa tiyi buu leeyihi waanu u sheegnay agtaada soo dhamaaday buu yidhi waa la ogyahay cid wax qarsooni ma jiro reerkiina reer awdalna waxay diideen oona ogolayn inay iyagoo midaysan wax doontaan kuwa digitaatayaashii way kala dhuuntaan nin walba wasiir buu doonayaa nin walba wasiir ku-xigeen buu doonayaa midna nin ma raaco sidaasay ku qadaan
waya cali ma waxaad leedahay nimankii xildhibaanadii kasoo jeeday goboladan awdal iyo salal iyo gabiley ee muqdisho joogay ee dawladda u matelaya dadka shacabkan degan goboladaas ayaa iyaga laftigooga aanan meel wada socon ba saasaad leedahay? uma wada socdaan, heshiisna maaha, ismana yaqaanaan, kuraasida baarlamanku bay isku arkaan. waayahay idinku qaybo kamid a qadiyadna ma hayaan nimankaas, cid ay qadiyad u hayaan ma jirto, dantooda meesha u joogaan. waayahay waxaa jira odayaal iyo dad iyaguna yimiday oo aanan kaba tirsanayn dawladda oo iyaguna shacbi oo ama dee odayaal dhaqameed ah oo iyaguna magaalada yimiday oo xagga koonfurta usoo kacay, kuwaas wax dhiri ma leedihin iyaga? odayada waan isku fiicannahay kuwa yimid. horta meesha waxaa joogayaan la khaldamin, meesha waxaa jooga dadkii haraadiga ahaa ee markii la kala qaxay socon kari waayey. dadkii baa ku koray oo mataqaana magaca matilaya. wax badan oo qabsan karaana ma jirto, yaan lagu khaldamin. dadkii wax qabsan jiray ee dhulkay laga joogi jiray dhammaan way yaaceen, xaggii baa la tegey. nasiibkoodii halkaa ka qaadeen. waa kuwii shirarka boorama ku qabtay, waa kuwii sanamta mataqaana dhexdhexaadinaya, waa kuwii sanamta dawladda u dhisay, waa kuwa jili kala ilaaliya haya inay isku yaacaan kala ilaaliya. raggaa weeyaan raggii wax qabsan jira, halkan wax qabsadaa kuma harin. kuwii isqaadi kari waaya lagaga tegey, iyaguna waaweynaaday oo matilaya odayadii mataqaanaa odayadii reerka matilaya. waxa la yaala waxay ka qaban karaan iyo waxay yihiin iyo waxay fahamsan yihiin toona ma jirto. waayahay cali haddaan dhan kale kuula weecdo dhawaan waxaa la magacaabay oo dawladdan cabdiwali ay magacooday wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaana loo magacaabay nin kasoo jeeda goboladaas. ninkaas wax aqoona ma leedihiin oo ama wax dhiri ma leedihiin? aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waana lu hanweynahay. anigu ninka in person shaksi ahaan isma naqaano, weligeyna ma arag, laakiin waa ku qanacsanahay. sheekooyin baan ka qaatay, sheekooyinkaasina waa positive, aad bay wanaagsan yihiin. waanan la shaqayn doonaa haddii alla yidhaa. sida ugu dhaqmana waan eegi doonaa. bacdama aanan aqoon ulahayn waxaan ka sheegaa oo xuni ma jiro, laakiin sida sheekooyinku u socdaan waa inuu nin wanaagsan yahay oo wax qaban kara waa la sheegay. development hore oo dadka u sameeyeyna waa la sheegay. laba iskuul inuu isagu mataqaanaa ragareelayo keeno hindisaheeda lahaana waa la sheegay. isaga wanaagiisa intaasaaba ku filan. anigana waxaan ku ballan qaadayaa qof ahaantayda ama reer ahaanta ama gobol ahaanta wixii uu iga baahdo inaan gacan ku siiyo ayaan ku ballan qaadayaa. xafiiskana insha allahu waan weli maba soo gelin dhulka, hadduu soo galana intuu yimid buu haddana maqan yahay. waan u dhawaan doonaa ninkaa, waanan mataqaanaaye haddii alla idaa la shaqayn doonaa. anaa taa isfaray, marka wixii igaga soo baxa haddii wanaag iga soo baxana mataqaanaa waan aad iyo aad baan gacmaha isku qabsanaynaa. haddii bay sidii noqdo mataqaanaa raggeenii horena de waa nasiib darro ina haysata, laakiin u malayn maayo. waxa sida looga sheekeynaya waa si heer sare ah. sidaa heer sare aan ka rajeynayna ilaahay inuu noo noqdo. waayahay cali haddaan kula noqdo xaggan iyo somaliland, waxa dadkan aad batasho awdal state gobolada ay degan yihiin waxay hoos yimaadaan maamulkaas somaliland. waxaan sababta aad idinku kaga soo horjeedaan ad ku diidantihiin bal dadka u sharax. okay, waa hadal balade. taas buug baa laga qori karaa, lama soo gaabin karo. waxa weeye horta horeeto taariikh bay meeshani leedahay. dhalinyartiinuna inaad barataan waa loo baahan yahay. waan ku arko, waan ku jeclaaday, naagaha lagula guursado. waxay u baahan tahay xiriir in lala sameeyo. qofka hasaawaha aad la barataan baa lala guursadaa. qof anad hasaawin la guursan karti, gabadhan lala hasaawin lama guursan karo, oon aqbalkii keenin. waxaan kuu sheegayaa taariikhda saca weyne marka dib loo noqdo. aniga la iigamana sheekayn, mana arag si taariikh meel labadaa reer ay political party isku mida ku wada jiraan iima sheegin weligeed. intaas political partiesku siyaasadaha waxay bilaabmeen intaan anigu qaangaarka ahaa 1958 yaa ugu horeysay.
USB baan noqonay iyaguna SNL bay noqdeen oo laascaanood baynu heshiis la galnay waay hargeysa aanu la geli weynay odayadu mayna lahayn way fahamsanaayeen way garanayeen waxay ka boodeen carruur baan anagu markaa ahayn way ka boodeen hargeysa way ka boodeen burco laascaanood iyo laasqore bay doonteen sabab la-aan male taas micnahaasi waxa weeye inaanay rajo ku ogeyn hargeysiya burcotoona qofkuna khasab laguma cabsiiyo biyaha faraska haddaad kaxaysid biyaha khasab ku cabsiisa ma karaysid waa inuu ikhtiyaarkiisa ku cabaa okay maanta waxa taagan khasab baan kugu cabsiinaya waad raacaysaa taasina waxaa u daliila 4 February 1991 markay dowladii Soomaaliya burburtay tallaabadii ugu horeeyay qaadeen waxay noqotay in Boorama la qabsado waa khasab ku cabsiintii baan weli ku jirnaa iskuna xisbi ma noqon karno iskuna xisbi ma nihin isku curufna ma nihin haasawana kuma heshiin karno anaa kaa sarreeya anaa kaa xoog weyn anaa kaa adag lugaha hoostooda ku gelinaya inay ku jiraan duruufuhu kuma siday doonaan iyay yimaadaan duruufaha haysta dadkaas insha allahu waanu ducaynaynaa way ka bixi doonaan maqaamkooda siyaasadeedna way qabsan doonaan iminkaba way socotaa maqaamka siyaasiga maanta way socdaa foreign secretary baan maanta haysanaa alxamdulilah ilaa prime minister baanu yaan hiigsanaynaa oo Soomaaliya ah waad ogtihiin arkiibooyinkana waad aragteen 200 oo boos oo Somaliland ka yaala oo darajaad 200 ee boos ee ugu sarreeya meesha Somaliland ka leeyahay waa wada SNM 2-3-4 baynu ku leenahay waxa la yiraahdaa madaxweyne ku xigeen madaxweyne on sharcigu function nasi waa loogu talagalay xisbigii waxa la baabiyey xumaantu halkay tahay xisbigii way awda lahayd in la rayaala lahaa ogaan loo baabiyey si aan loo tartamin waa niman caynkaasa waxay raali ku yihiin inaad socoto keliya markay ogaadaan inaad daba socoto ya mataqaana jaqafka ayga lagu tuuraya si aad naftu kaaga bixin haddii kale waaba lagu ardaadaqa laga dhigay waa lagu baabiinaya dagaal baa cilbarda dhulkay qaadanayaan dagaal baa cilbarda ka socda mashruucii beri hore ku daayay ciidan inay bay soo bandhigeen waa dhexdhexaadin bay yiraahdeen markay ciidanka dejiyaan adiga laga rabay iyaga la siinaya waa mashruucii mid jiro kuma yaqaan heerkii lahaa waa laga qaatay mataqaana caadi aaway ciidan baa dagaal baa ka dhacay dagaal waxa la soo dejiyay ciidan caadi waa lala kala tegay ardigeedii aaway lughaye mataqaana aaway saasaa loo socda dawga cad muxuu yahay mashiiniisu 1961 على حال مركي بديسي waxa loogu talagalay in Boorama la cuno qabatay oo nin hargeysa burco la saaro koob shaaha ka cabin mataqaanay Boorama nooca aynkaas balalka kol balalka lagu dilaya dadka sida ay dadku way fahamsiin inaan raacan siyaasiyiinta reer awda inay marnaba aqbalaan maaha hadday aqbalaan waa geelida ubadkooda weeyaan waan arkay Suuriya waxa ka socda 150,000 oo qof baa dhintay iyagoo la leynayo diyaaradaha ay dagaalamayaan moogtahay marka waxa weeye bal almiino waxa weeye mataqaana ka ugu liitay waxa ugu liita waa inaad qalbiga xumaanta waa inaad gacanta ku fiiriso xumaanta haddaad kari weydo waa inaad carabka ku fiiriso xumaanta haddaad kari weydo waa inaad qalbiga ka nacdaa almiino maanta qalbi kalixiga yaan taaganahay waayahay tallaabada la qaado waxaan ku sheegayaa qaxootiga soo noqday waa la soo celiyay 500 guri 500 guri baa la dhisay hal guri laguma dhisin WFP waxay bixisay 30 milyan oo dollar oo biyaha lagu hagaajiyo waxa tago jala uga shaqeysa wixii bari ka dhigaa la siiyay waxa la yidhi 500 kun oo dekedaha iyo badaha iyo hooyada lagu samaynayo waxa loo qaybiyay ergaabo maxaan ku raahdaa berbera iyo hargeysa iyo mataqaana sidan waxay ku tilmaamaan iyagu sayla sidan waxa u wadaa waxaan reer Boorama ahayn bay ka wadaan marka waxa weeye
bal u fiirso arkana ingiriisku wuxuu ka tegay 6 district 3 bad bay lahayn 3 bad ma lahayn 3 aan bad lahayn waa laascaanood iyo burco iyo hargeysa okay hargeysa waxa lagu daray kalluumaysigii maxaa loo wadaa badda boorama leedahay raayla taabs badda galbeed bal u fiirsada waxa la yiraahdaa badda siilac lama yiraahdo badda boorama lama yiraahdo badda galbeed baa laga xeebta galbeed macnaheedu waxa weeye lama kala laha jubileed doonaysa oo hargeysa doonaysa oo xeeb doonaysa inay berbero yihiin isku jilib yihiin reerka berbero haysta oo abana walaalahay ma oga marka waxa weeye inaad wax fahantaan baa loo baahan yahay inaad sidaa wax u garataan baa loo baahan yahay in la isku socdo looma baahna warbal madaxweyne ku-xigeenka ah wasiirka ah xuquuqda dadkaagii halkay taala xuquuqda dadkaagii hadda dalbiisa madaxweyne ku-xigeenka tahay waa sax waan hambalyeynayna waa darajo hadda wasiirada tahay waa darajo waan hambalyeynayna laakiin ma kursigan ku fadhiyaa ay macna yeelanaysaa waa ina xuquuqda dadkayga eega ceelasha biyaha la qodayo scholarships la bixinayo ambassador la bixiyo xadidka malihid inta 200 oo xafiis oo ugu sareeya mataqaana Soomaaliya waxaad ku leedahay 3 marka ma sidaas lagu raaci karaa dad waxa weeye waxay odayaashii garteen in asxaabadu u tageen inkastoo USP ku fashilana haddana laakiin marka fikrada